xeerbeegti Mareykan ah oo ku sugan gobolka New York ayaa u codeeyay in dacwad lagu soo ogo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump iyadoo loo haysto eedo la xiriira inuu lacago siiyay gabar lagu magacaabo Stormy Daniels intii lagu guda jiro ololihiisii doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2016. Talaabadan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee dacwad lagu soo ogo madaxweyne hore ama xitaa musharax madaxweyne. ilaa hadda faahfaahin dheeraad ah lagama hayo dambiyada lagu soo oogay Trump maadaama uu wali xiran yahay galka ay ku jiraan dacwadihiisu oo aan la furin. hase ahaatee eedaha loo haysto ayaa ka soo baxay baaritaano hore oo lagu sameeyay, waxaana loo haystaa bixinta lacag gaaraysa $130,000 oo uu siiyay haweeneydan lagu magacaabo Stormy Daniels. haweeneydan ayaa sheegtay in Trump uu ku sameeyay xadgudub iyo galmo sharci darro ah. madaxweynaha ayaa loo haystaa sidoo kale rabshadihii ka dhacay Mareykanka kadib guuldaradii doorashadii looga adkaaday. Trump ayaa wajahaya eedaymihii ugu cuslaa xilli uu doonayo inuu u tartamo doorashada 2024. madaxweyne Trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee maxkamad la soo taago, ayna tahay macquul in uu mutaysto xarig haddii ay ku cadaato eedaha loo haysto. Maxamed Muuse Qalsaal, Cable TV. moogta macmil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba. waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees. Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud. waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya. ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam.